السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadka waxa ugu liita qof markaad isku dhacdaan ama adiga wuxuun kugu diida wanaagaagi oo dhan inkiraya. haddaad wanaag u samaysay intaad saaxiibada haydeen isku fiicnaydeen wanaagaagi oo dhan wuu dafiraya wuu inkiraya, wuxuuna ku sameynaya oo ku raadinaya cuyub iyo ceebo aadan lahayn markaa iyo xumaan aadan lahayn. sidoo kale hadduu sirka ay sirtaadii oo dhan wuu faafinaya. qofkaas waa qofka ugu xun dadka uguna dhaqanka xun ma aha ama ma mudna qofkaas oo kale in lala saaxiibo. nabigeenu wuxuu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi almar'u ala diin khaliilihi falyanzur ahadukum man yukhallil. qofku wuxuu qaataa ama uu ku sugan yahay dhaqanka iyo diinta saaxiibkii, ha iska fiiriyo qof walba cidda uu saaxiibka la ka dhiganayo. suurada loo yaqaan suuratu saafaat beejajka horeba waxay inoo tilmaamayaan dadka ahlu jannaha inay jannada markay galaan ku sheekaysan doonaan. kadibna nin ahlu janno ah baa wuxuu u sheekaynayaa nin ay jannada isku meel ka degan yihiin. kadibna wuxuu odhanayaa niyow adduunkii markaan joognay waxaan lahaa anigu nin aan saaxiib ahayn, ninkaasi wuxuu igu odhan jiray ma aakhiraad rumaysan tahay, ma jannaad rumaysan tahay, ma naar baad rumaysan tahay, kaali bal ninkii naarta igala soo fiiri. way fiirinayaan kadibna naartay ku arkayaan isagoo naarta dhexdeeda ku jiro gubanayo la cadaabayo. markaasuu odhanaya hadduusan ilaahay hanuunin lahayn oo dariiqa saxda igu toosin lahayn halkaas ayuu igu shalwin lahaayo naartaas igu tuuri lahaa. marka alxamdulillah calaa nicmati lislaam. marka qofka aad saaxiibka ka dhiganaysa hadduu yahay qof wanaagsan meel wanaagsan buu kuu horseedaya, hadduu yahay qof xunna meel xun buu kuu horseedaya. marka qof walba ha iska fiiriya cidda uu saaxiibka ka dhiganayo, qof walba ha iska eego cidduu saaxiibka ka dhiganayo. maalintaad qofun saaxiib ka dhigato maalintaas ayay dhammaan noloshaada oo dhan wax in weyn oo kamid ah baaba'aysa. akhlaaqaadi ahaan bay u baaba'aysaa, cibaado ahaan bay u baaba'aysaa, dadnimo ahaan bay xitaa u baaba'aysaa. marka saaxiibku qofka wuxuu ku leeyahay saameyn aad u weyn. marka qof walba ha iska fiiriya cidda uu saaxiibka ka dhiganayo. salaamu calaykum.